kulan wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkaad naga daawanaysaan waa Boundless Media wararkan maanta idinku hayno qodobadiisa waxaa ka mid noqon doona Roblo cadeeyay waxa ay ku wada hadleen taliyaha ciidamada lugta ee dalka Uganda xisbiga SPD ee dalka Jarmalka oo si dirqi looga guuleystay xisbiga Angela Merkel iyo xog ku saabsan maxaa looga hadlay kulankii xalay dhaxmaray Fahad Yaasiin iyo Qorqor daawadayaal ku soo dhawaada qodobadaas oo faahfaahsan Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay taliyaha ciidamada lugta ee Uganda General Muhezi oo socdaal ku yimid magaalada Muqdisho waxa kulankaasi ku wehelinayay Ra'iisul Wasaaraha Wasiirka Amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur kulanka ayaa looga hadlay howlgallada AMISOM iyo kaalinta ciidamada Uganda ku leeyihiin dib u soo celinta nabadda Soomaaliya iyo ciidamada Uganda ay si buuxda gacanta ugu hayaan amniga madaxda dawladda garoonka iyo dekedda Muqdisho imaanshaha Muqdisho taliyaha ciidanka lugta ee Uganda ayaa ku soo aadayay iyadoo khilaaf u dhaxeeyo waxaana la xasuustaa 10 sano ka hor sanadkii 2011 heshiiskii Kampala Accord ee taliyihii hore ee ciidanka lugta Uganda uu qayb kaga ahaa fulinta heshiiskaasi uu isku casilay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaare sidoo kale taliya Muhezi ayaa isla maanta Muqdisho kulan kula yeeshay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lamana oga waxay sida gaarka uga wada hadleen Musafini ayaa taageero dhow siiyay madaxweynaha muddaxileedku soo dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haatana Jarmalka xisbiga dimuqraadiga ee SPD ee bidix dhexe ayaa si dirqi leh uga guuleystay xisbiga ay hogaaminayso haweeneyda xilka ka sii dagaysa ee dalka Jarmalka Angela Merkel oo ee doorashadii federaalka ahayd shalay wadankaasi ka dhacday xisbiga dimuqraadiga ee SPD ayaa xaqiijiyay inay heleen cod gaarayo 25.7 boqolkiiba codad kala dhiibtay halka xisbiga muxaafidka ee talada hayay uu helay 24.1 boqolkiiba waxa kaalinta saddexaad soo galay xisbiga oo isna helay 14 boqolkiiba waxaana natiijada ugu wanaagsaneed ee taariikhda ay helaan xisbiyada waxa ay guusha xisbigani soo afjaraysa hogaankii muddada 16 sano ahaa ee Angela Merkel inkastoo aysan jirin xisbi sheegan kara aqlabiyadda ama inuu leeyahay 50 boqol haatana waxaa suurtagal ah inuu fursad la siiyo xisbiga ku guuleystay doorashooyinka ama in la abuuro isbahaysiyo si loo dhiso dawlad muddo 4 sano ah matasho shacabka dalka Jarmalka waa markii ugu horreysay oo ay ka dhacday dalka Jarmalka wax ka badan 10 sano madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor ayaa xalay kulan la yeeshay la taliyaha amniga qaranka Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir sida ay ilwareedyo lagu kalsoon yahay inoo xaqiijiyeen kulankani oo ka dhacay hoyga uu Qorqor ka degan yahay nawaaxiga garoonka diyaaradaha aadan cadde ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa wasiir dawlaha gadiidka Cabdiraxmaan Dheere iyo wasiirka boostada Galmudug Aadan Qoryoore oo lagu tilmaamo shakhsiyaadka aad ugu dhow ee kulamada gorgortanka siyaasadda uu u dirsado Fahad Yaasiin sida aan xogta ku helayno Qorqor iyo Fahad Yaasiin ayaa ka wada hadlay arrimaha wali taagan ee khilaafka ka dhaxeeya ee wali xalka loo laayahay madaxweyne Qorqor ayaa xilligan loo arkaa inuu yahay garabka ugu weyn ee fila Soomaaliya ee sotan iyo markii uu bilowday khilaafka Farmaajo iyo Roble isaga oo horey isugu dayay heshiis uu doonayay Farmaajo balse fashilmay waa markii labaad oo Fahad Yaasiin uu banaanka ugu soo baxo madaxtooyada tan iyo markii uu dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho toddobaadkii hore waxaana wali amnigiisa sugayo ciidanka waran ee NISA taasi oo ka dhigan inuu wali saameyn ku leeyahay arrimaha nabad sugidda oo uu faraha kala bixin wali wararka ayaa sheegay in fila Soomaaliya ay wali aad u doonayso inay heshiis la gaarto Roble oo haada gacanta ku dhigay maamulka dhaqaalaha iyo warbaahinta dawladda balse doonayso heshiis uu doonayay Farmaajo kaasi oo la marsiin la yahay Roble Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa shalay si rasmi ah ula wareegay xilka la taliyaha amniga qaranka dhawaan loo magacaabay sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada daafaha caalamka aan idinkaga hanay wararkeena maanta waxaa idiin soo saaray idin akhrinay anigu Cabdinajiib Cabdullaahi Najiib Akhyaar intaan wararkeena dambe dib ugu kulmi doono waxaa idinkaga tagay sidaas iyo fi amaan illah